maanta waxaan idin hayaa qiso aad cajiib u ah. qisada tan way ka duwan tahay qisooyinkii kale. Aung San Suu waxay haysaa mansabka ugu sarreeya dalkaasi Myanmar. waxaa ciidankeedu xasuuqeen malaayiin muslimiin Myanmariyiin ah, waxaana loola dhaqmaa ilaa maantay dadka ugu liitaa uguna xuquuqda yar adduunkan aan ku noolnahay. waxay ku guulaysatay Aung San abaalmarinta Nobel Peace Prize-ka. soo dhawaada channelkeena Koryaal, waa anigoo ah Cabdiraxmaan Ilyasini. waxaa laga yaabaa inaad la yaabto oraahda jaa'isada Nobel Criminal Prize, halka loo yaqaano Nobel Peace Prize-ka. si aan kaaga dabageeyo mawduucan, ka waran haddii aan isla eegno bilowga iyo taariikhda Nobel Peace Prize-ka. waxaa aasaasay abaalmarintan nin la yidhaahdo Alfred Nobel, caalim asalkiisu yahay waddankaasi Sweden. waxa uu dhashay sanadku markuu ahaa 1833, gaar ahaanna wuxuu ku dhashay caasimadda Stockholm, waddankaasi Sweden. Alfred waxa uu aad uga walwalay shaqaalaha buuraleyda macdanta ka gura iyo kuwa godadka ka shaqeeya iyo kuwa dhagxaynta dhismayaasha jajabiya. waxa uuna ku fekeray sida uu shaqadan rafaadka iyo dhibta badan ugu fududayn lahaa si ay u jabiyaan buuraleyda ama u qodaan godadka macdanta iyagoo aan hawl badani ka gelin. waxaa maskaxdiisa ku soo dhacday inuu sameeyo agabkan oo noqon doona agab caan ah. waa dynamite-ka oo ka mid ah walxaha qarxaadkan ugu caansan. waxa uuna sameeyey dynamite-kii ugu horreeyey sanadku markuu ahaa 1867, waxaana la bilaabay in lagu isticmaalo buuraha macdanta, waddooyinka oo lagu jabiyo, biyo-xiroonnada oo lagu dhiso, iyo sidoo kalena in dhagax dhismeedka lagu qarxiyo, taasoo u noqotay shirkadaha waaweyn hawl fududayn aad loogu dayrsaday. Alfredna waxa uu noqday hodan hantidiisu tiro beeshay maadaama ikhtiraiciisu ku faafay dunida oo dhan. markii uu Alfred samaysay dynamite-ka, marnaba maskaxdiisa kuma soo dhicin inuu qof ku dhibaateeyo, balse bilcagsi waxa ugu talagalay inuu shaqaalaha dhiman ku caawiyo. aadame waxa uu sifooyinkiisa ka mid ah inay dhanka xunna wax ka eegaan. waxaa qolo ku fekedhay, ka waran haddaan dynamite-ka u isticmaalno dhanka dagaalada, soo saamayntiisu badan mayso? dabcan haa, waxayna noqotay natiijadii dynamite-ku mid khasaaro lixaad leh, heer Alfred loo bixiyey magaca taajirka geerida. sanadku markuu ahaa 1888, waxaa geeriyooday Lord Fred Nobel oo ahaa walaalka Alfred Nobel. warkii geeridiisu markii ay gaartay jaraa'idka adduunka, waxay u maleeyeen in Alfred Nobel uu geeriyooday, waxaana dhacday in joornaal Faransiiska laga leeyahay uu soo qoro beejka ugu horreeya ee jaraa'idka. waxaa geeriyooday taajirka geerida, kaasoo keenay qaab fudud oo dadka loo gumaado. waxa uu geeriyooday shalay. Alfred markii uu arkay jaraa'idkan iyo sida loogu farxay geeridiisa, waxay ku noqotay murugo iyo wejigabax. waxa uuna ahaa hadafkiisa ugu weyn markii uu dynamite-ka samaynayay inuu dhanka wanaagga u isticmaalo, balse marnaba isma lahayn waxaa lagu xasuuqayaa malaayiin qof. waxaana dhacdadan soo shaabahda tii Albert Einstein uu sameeyey formuladii ahayd E=mc², oo la lisay in laga sameeyo nuclear-ka, ummadana xasuuqay. markii ay labadan saynisyahan samaynayeen, isma lahayn malaayiin qof ayaa la xasuuqayaa, balse waxay ku noqotay lama filaan wixii aad samaysay ee dhanka wanaagga ugu talagashay in loo bedelo dhanka xumaanta laguna gumaado malaayiin qof. Alfred aad ayuu u murugooday. waxa uu ka fekeray, haddii aad geeriyoto, magac xun ayaa kaa haraya, gacmahaaga ayaad magac xumo ku doonatay. balse ugu dambayntii wuxuu ku fekeray sidii uu xumaantaas u dabooli lahaa una tirtiri lahaa. waxaana ku soo dhacday maankiisa inuu sameeyo abaalmarinta loogu talagalay in la siiyo qofka ugu saamaynta badan cilmi, kaba soo qaad biologiga ama chemistry-ga. waxa uuna geliyey 94% hantidiisii oo dhan, waxaana ka mid ahaa abaalmarinta Nobel-ka ee physics-ka, chemistry-ga, caafimaadka, adabka iyo sidoo kalena abaalmarinta Nobel-ka ee nabadda. haddaba abaalmarinta Nobel-ka ee nabadda ayaa ah tan ugu hadalhaynta badan, maadaama la siiyo dadka ugu saamaynta badan dhanka nabadda iyo dhexdhexaadnimada gobollo ama waddamo fara badan. inta aanan sii fogaan, fadlan subscribe saar muuqaalka, lana wadaag asxaabtaada. waxyaabaha keenay muranka iyo hadalhaynta ka dhanka ah abaalmarintan nabadda ayaa ah in la siiyo dad mujrimiin ah oo gumaaday malaayiin qof. ila daawo shakhsiyaadkan aan filayo inaad garanayso badankood. qofka koowaad waxaa la yidhaahdaa Aung San Suu Kyi,
waxa weeye haweeneydan waa qofka ugu sarreeya jaga ahaan dalka Myanmar. waxay ku guuleysatay abaalmarinta Nobel Peace Prize-ka sanadku markuu ahaa 1991 balse ciidankeedu waxay xasuuq joogto ah u geystaan muslimiinta Myanmar oo ay ciidankeeda ku amartay inay xasuuqaan saqiir iyo kabiir. run ahaantiina waa mid adduunka oo dhani indhaha ka qabsaday. waxay ku guuleysatay abaalmarinta safiirka damiirka iyo danqashada sanadku markuu ahaa 2009 waxayna guddigii u soo direen fariintan sidan u qoran: waxaan dareemaynaa wejigabax aad u weyn sababtoo ah waxaa lagu hungoobay booskaagii geesinimada, kartida iyo u qarimidda xuquuqda aadamaha maadaama aad xasuuq geysatay. Canada ayaa dhankeeda waxay kala noqotay laalashadeedii, sidoo kalena magaalooyin Britain ah ayaa kala noqday taytalka muwaadinada lagu faano. laakiin sanadii 2017 ayaa waxaa la isku dayay in laga xayuubiyo abaalmarinta Nobelka nabadda ama Nobel Peace Prize-ka, waxaana saxiixay warqadaas 300,000 oo qof iyo ururo tarbiyadda iyo cilmiga iyo thaqaafadda waxay xaruntiisu tahay waddankaasi Morocco. balse waxaa lama filaan noqday jawaabtii guddiga abaalmarinta Nobelka oo ay og yihiin inay xasuuq isir iyo diin ku salaysan u geysatay malaayiin muslimiin ah. waxayna jawaabtoodu ahayd isla 2017 mas-uul kama nihin wixii dhibaato ah oo ay geysatay Aung San, mana laga yaabo inaan kala noqonno abaalmarintan. cajiib. shakhsiga labaad ee lagu guddoonsiiyey xasuuqa waa inta aanan bilaabine aan u sacbinno. waa Shimon Peres oo ah ninkii xasuuqay kumanaan muslimiin reer Falastiin ah. waxaa la guddoonsiiyey ninka noocaan ah abaalmarinta Nobelka. malaha reer galbeedku waxay isku dhufsanayaan xisaab ah ninkan haddii la siiyo abaalmarintan Nobel Peace Prize-ka in la tirtirayo wixii xumaan iyo xasuuq ah uu geysto. balse qofkii damiir damqanaya leh lagama yaabo inuu hilmaamo. waxa uu ahaa raggii xasuuqa ka geystay Masar sanadku markuu ahaa 1956. sidoo kalena Peres waxa weeye xubin muhiimka ah ururka Sahyooniga ah, waxayna ahaayeen asaaskii fikradda Sahyooniga. waxay ahaayeen qoladii ugu horeysay ee xasuuqa badnayd geysatay. waxauna ahaa injineerkii fariisiyey weerarkii Lubnaan 1969. Shimon Peres waxa uu ahaa sidoo kale injineerkii xasuuqa ka geystay koonfurta Lubnaan. iyada oo gumaadka intaas leeg ay sameeyeen ayuu geeriyooday sanadkii 2016 welina wuxuu haystaa abaalmarinta Nobel Peace Prize-ka. qofka saddexaad waa Henry Kissinger, waxaana la yaab leh naanaystiisa oo ah shaydaanka malaa'igta ah. Henry waxa uu ka mid yahay wasiirada arrimaha dibadda Mareykanka ugu muhiimsan. waxa uu ahaa madaxii fariisiyey dagaalkii Vietnam. waxa uu naftooda ku waayay dad ka badan 3 milyan oo qof. waxaase xusid mudan in la isticmaalay hub aad u khatar ah oo ka mid yahay hubka nuclear-ka oo loo yaqaano Agent Orange, waxaana lagu isticmaalay waddanka Vietnam intii u dhaxaysay 1961 iyo 1971. waxaana la isticmaalay malaayiin barmiil oo sun ah, waxayna gaartay heer ay saameyn ku yeelato jiilalkii dambe ee wax ku beertay ama cunay dhirtii iyo dhulkii ay saameynta ku yeelatay suntaasi. waxayna ilaa maantay saameyn ku yeelatay jilal fara badan oo muuqaal ahaan iyo maskax ahaanba u beddeshay. waxaana ka dambeeyey dhagartaas Henry Kissinger. reer galbeedkuna waxay u arkeen inuu yahay geesi una istaahilo in la siiyo abaalmarinta Nobelka nabadda 1973. dilaa ummad ku dhow malaayiin saameyn ku yeeshay ilaa maantii ayaa la guddoonsiiyey abaalmarintan. guud ahaanna taas waxay ahayd xog aan ka soo aruuriyey abaalmarinta Nobel Peace Prize-ka oo run ahaantii dhalisay hadalhayno fara badan. muuqaalkeenni maanta intaas ayuu ku egyahay. fadlan ha hilmaamin inaad la wadaagto asxaabtaada, sidoo kalena subscribe saadho si aad noogu noqoto dhiirigelin. mahadsanid.